Horyaalka caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa muddo soo socday, kaas oo ay soo dhaceen ciyaaro kala duwan, isla markaasina marar badan oo kala duwan uu horyaalkan dib u dhac ku yimid. Ciyaar xiiso leh ayaa galabta waxa ay dhex martay kooxaha Gaashaan iyo Goodir ee ciidanka kala duwan. Ciyaartan oo ahayd mid xiiso badan isla markaasina macno badan lahayd marka laga yimaado inay kooxda Gaashaan ay higsanaysay inay ku guuleysato horyaalkoodii koowaad ee caasimadda. Labada kooxood ayaa ku xifiltama ciyaarahooda iyadoo aan koob la socon. Kulankan ayaa kooxda Goodir badinteedu waxa ay ku xidhneed inay xaqiijiso inay ku guuleysatay horyaalka caasimadda ee sanadkan 2025-2026. Kooxda Goodir oo halkaas iyada lafteedu ciyaar xiiso leh ku soo bandhigtay ayaanay u suurtagelin galabta inay qabtaan isla markaasina ay sii hakiyaan in si rasmi ah kooxda Gaashaan ee ciidanka qaranku ay ku guuleysato horyaalka caasimadda. Kulankan oo ahaa mid xiiso badan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybo ka mid ah taageerayaasha labada kooxood ee ku nool caasimadda. Kulankan daawashadiisa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay qaybo ka mid ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland kuwaas oo taageerayay isla markaasina koobka la doonayay kooxda ciidanka qaranka ee Gaashaan. Sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka soo qayb galay oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, taliyaha ciidanka qaranka Somaliland iyo taliyaha ciidanka booliska ee Somaliland, kuwaas oo iyaga laftoodu kala taageerayay labada kooxood. Kulankan ayaa waxa uu ku soo dhamaaday 2-1 gool ay guushu ku raacday kooxda ciidanka qaranka ee Gaashaan, kuwaas oo kor u qaaday markoodii koowaad horyaalka caasimadda. Cabdikariin Guji oo muddo dheer soo ahaa kabtanka kooxda Gaashaan ayaa isaga laftiisu waxa uu sameeyay taariikh, isla markaasina muddo dhaweyto waxa uu ku dhawaaqay inuu u leexday dhanka iyo siyaasadda uuna ka fadhiisanayo sanadkan ciyaarista kubadda cagta. Nasiibkiisa ayaa galabta u saaciday ka hor inta aanu macasalaameyn kooxdiisa iyo kubadda cagtaba inuu ku guuleysto horyaalka caasimadda oo gabagabo ku dhow, kaas oo ay ka harsan tahay hal kulan. Sidoo kale macalinka kooxda ciidanka qaranka ee Gaashaan ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen hadal hayn ahayd kuma guuleystaan horyaalka caasimadda oo ma soo gaadhaan halka kooxaha waaweyn ee dhigooda ay gaadheen. Kooxda Gaashaan ayaa taariikhda markoodii koowaad ku guuleysatay horyaalka caasimadda, waxayna u tahay taariikh cusub oo ay bilaabeen iyo weliba rajaynta inay sanadka soo socdana ciddii gaadha koobkan ay difaacdeen.